dhimashada qoys ahaan anigu waxaan isleeyahay maxamuud Saleebaano halka hana ka caroonina reer ahaan reerka ugu khasaaraha badan baa dir weeye dhowr iyo toban wiilana gacanteeda ku aasay oo sawiradoodii moolkayga ku haya waxaan si gaar ah si guud u salaamayaa ugu horeyn anigu musharax oranaayo madaxweyne Asad Cismaan Cabdullaahi dhamaan ka soo qaybgalayaasha xafladan qof walba magaciisa iyo meeqaamka uu ku fadhiyo ku salaamaya campaigner ban caawa anigu ah Asad intuu leeyahay uga badin maayo intuu leeyahay ka aqaanaan idin sheegaya Asad Cismaan Cabdullaahi oo aniga de kulay wada garanaysan oo fahimo la aragaya Asad la aragayo sababta aanu iskula gaadhnay heerka inta leeg in loo kala garan waayo mararka qaar la yiraahdo ma ina ikraamina Asad waxay tahay wanaaga iyo shakhsiyadiisa hogaamineed oo uga samaystay ilmaadeerteeda faraha badan ee madaxweynayaasha ah wasiirada ah xildhibaanada ah siyaasiyiinta ah hanashada ay hana waayeen ee Asad ugu hantay in adeertinimo taasi hogaamintiisa horta idin cadeynaysa mararka qaar waxa laga yaabaa inaad isweydiisaan nibintii halganka ee rag badan oo harti ilaa maxay fiima Asad kaliya dusha uga saartay halkuu ka soo bilaabay halkii lagu biday damciisa siyaasiga looga dagaalamayay iyo intii uu geystay markaan eegay isaga ay kala cuslaaday dadkii kale oo dhan intuu qabtay intaan gaalka libinta ugu siiyay ciil ugu bixiyay horta waa intaas Allah uu naxariisto sidoo kale waxaan xasuustaa oo qayb isaguna ka halganka oo Asad bixiyay qoryo u dhiibay rasaas u dhiibay adeerkay afkaar cali xirsi Allah uu naxariistay oo ahaa ninkii ugu horeeyay subaxii la saacano xabadu ka dhacday ku dhintay la saacano xabadii subaxa ka dhacday aniga afkaar wixii aanu geynay marxaati aanu sabaysanayay baa lagu difaacay waxaan xasuustaa 34 siriis oo ah siriisada BKM-yada iyo rasaastii aan Asad ka qaaday iyo qoriga la yiraahdo sabanka baarotooyinkiisii intii subaxii Soomaaliya la isaga caabiyay ee habeennimadii gurmadku loogu yimi ee magaalada lagu difaacay intaan aniga afkaar Asad ka qaadnay bay horta difaaca soo halkaas uu kaga jiray ciidankii ugu horeeyay ee la ku gala laascaanood ee Soomaaliya khalkhal galiya ee habeenkii iyagoo laamiga marayay soo duubeen ciidanka BS buuha ee laascaanood gali jiray ilaa iyo hadda oo ay sanad ka soo wareegtay ciidanka difaaca ugu horeeyay ku jira ee aan maalin ka soo bixin 28 bisha mushaharkooda qaata waa ciidanka Asad Cismaan ugu dari maayo maamul baa jooga saraakiil baa joogta maragay marxaatiye yeelanaysa inta sheegayaaba waa in cad ciidanka Asad ka jooga waan xasuustaa ciidamo badan baa jiray oo gurmad ku yimi oo sida ciidan beeleedka dhulbaantay rasaasta iyo raashinka iyagu sugayay ciidanka Asad gaari kasta 8 kun oo xabo rasaas baa dul saarnayd maalintuu dagaalamayo ambalaastii watay booyadiisa biyuhu watay gaarigiisa raashinku watay dhaawaca xitaa dhaawacyada anagu aanu daweynayno ama baankareynayno kuma jirin gaar baa loo soo qaaday isaga daweysanay dhaawaciisa dhimashada qoys ahaan anigu waxaan isleeyahay maxamuud Saleebaano halka hana ka caroonina reer ahaan reerka ugu khasaaraha badan baa dir weeye dhowr iyo toban wiilana gacanteeda ku aasay oo sawiradoodii moolkayga ku haya inta isagoo madaxweyne ahayn uu ku dagaalamay ee difaacay laascaanood waxaan qabaa Asad oo madaxweyne ah inay dhulkeena ciidamo soo hungurayseen